إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ما أنت محاضرة إنه حكوسها بسنتهاي أن إلهي سبحانه وتعالى أو مؤمنين إيمان كودو كلا سارهايو كو كلا سارهايو أن تكاليف الشرعية قفك إيمان كيسو كرن يهي qofku iimaankiisu ka been yahay ayay horta ku saabsan tahay. waxaan xoogaa aan ka yara cudur daaranaynaa martidii inoo soo socotay gobol laga sugahayay ay lahaayeen maaragtay inay annaga nagu soo hormaraan kadib xagga ay aadaan waqtigii xoogaa ku yaraaday awgee ayay horta inooga cudur daarteen. laakiin insha allahu tacaala inta xaadirka joogto markaan xoogaa nafsada ruuxdan aan boorka ka yara jafno in aan maaragtay soo jeedino mahadnaq bacd allahi subxaanahu watacaala ilaahay anagoo ugu mahadinayno uguna shukrinayna nicmada nagu galladaystay ee ah makaankan aynu maanta iyo mar walbo aynu maaragtay ku cibaadaysanayno ilaahay dikrigiisana aynu maaragtay ku xusayno waa akbar nicma, waa nicmo midda ugu weyn rabbi subxaanahu watacaala inagu galladaystay. ilaah baan ugu mahad celinaynaa marka hore. thaaniyan walaalihii doorka ka qaatay dhinac maaliyad ha noqdo, dhinac maaragtay waxqabad iyo xoog ha noqdo iyo ra'yiba ha noqdo, ayagana inaan maaragtay mahad gaara aan u soo jeedino. kadibna waxa kale inoo xiga ilan meeshii waynu iibinay walilaahi alxamd, gacanteennii bay soo gashay. waxa weye isteebka kale inoo xigo waa maxay? in taa iyada lafteeda in warbixin la iska siiyo. laakiin maanta waxaynu ku horreysiinaynaa rabbi subxaanahu watacaalaa ee ina abuuray. muxuu inoo abuuray? isweydiin bay leedahay. war maxaa adiga adduunyadan lagu keenay oo aabbiyo hooyo oo maaragtay ay kuu dhaleen? hadafka iyo sirta meesha ku jirto waa maxay? sir baa ku jira. sirta waxa weeye waxa lagu abuuray waa cibaado. ilaahay wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. jinni iyo insi waxaan u abuuray inayna caabudaan. ilaahay inaanu caabudno ayaa la inoo qalqay. sirta meesha ku jirto waxa weeye cibaada lagu abuuray, walaysa maaragtay cabath iyo cayaar laguma abuurin. marka waxaan insha allah waxaynu iska xusuusinaynaa iimaanka aynu sheeganayno ilaahay subxaanahu watacaala inaan rumaysannahay diin, kitubadiisii, rusushiisii, malaa'igtiisii, qadarkiisii, shar iyo khayr, iyo hadduu ilaah ku roon yahay iyo maalinta qiyaamo in la isu soo saarahayo. waa 6 arkaanoo iimaan aynu wada ognahay. tiibaa la muujinahayaa. war yay ka run tahay yaysa yaa ka been tahay ayaa la muujin. idan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaalaa maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiitha min alطayibi. ilaahay sha'nigiisu ma ahaanin inuu mu'miniin faraha uu ka qaado in sida ay xaaladda ay ku sugan yihiin. xaaladda ay ku sugan yihiin in faraha looga qaado sha'niga ilaahay ma aha. ilaa waxa weeyaan balse laabudda min ibtilaa inuu ilaahay jarribo oo imtixaan
امتحان كاسو محال امتحانها بالتكاليف الشاقة، يعني تكاليف لبضا منها وحاكمدة كالجهاد والهجرة والصلاة والزكاة كواسا لبضا. جهادكي نفتي ما أقلا مالكي لما أقلا إذن إيه هجرة إلا هجروده لقى هجروده هجرده وامحي إن لقى هجروده ماركتي أن من الكفر إلى الإيمان يا من الماركتي المعاصي إلى الطاعة يا ويان إن ماركتي قفكي ما أن إسلام أهين أنو إسلام نمدي أسو هجروده وأسو آده كي معاصي iyo maaragtay naf iyo hawo iyo maaragtay adduunyo iyo shaydaan wereeriyeenna inuu ka hijroodo u hijroodo daacada ilaahay weeyaan. way dhib badan tahay maanta waxaad arkaysaa bahalkan la leeyahay sigaarka oo kale dadka qaarkii way ku adag tahay inay maaragtay iska daayaan, aad bay ugu adagtay ilaa man raxima rabbi. waxaa la rabaa inaad ka hijrootid, aada u hijrootid maanta in aada dayso ood ilaahay dartii u daysid, waayo nafsadaadii baad baabeen, nafsadaadii baad maaragtay halaag ku riday. waxa ka dambe iyadoo weli saa ay tahay ay shirkadihii sameeyey ay odhanahayaan bahalkan waa dilaa, bahalkan waa maaragtay cudurkan oon daawada lahayn oo loo yaqaano sarataan buu leeyahay, wamaa ilaa daalika ayaa lagu soo qorahayaa maaragtay baakadka ku jiro. waxa weye war berihana eedin yaa ma garatay, haddii aada dhibkaa kugu yimaado naftaadii haddaad ku halaagto annaga hana eedin. waa markuu shaydaan uu jahanama markii la isku guro yaa uu khudbada ka akhrinahayo ee mimbarka jahanama uu yiraahdo war aniga ha eedina naftiina eeda, awood idinkuma lahayn, idinna awood iguma lahayn, waa idin yeeri waad cajiibteen. bal ninka baakadkaas isoo ku qoran waa dilaa oo haddana intuu lacagtiisii bixiyo yaa uu maaragtay yaa uu qaadanayo naftiisina looga digay laleeyahay war bahalkan waa dilaa maaragtay sagaar yaa. marka idan waxa weeyaan hijrada haddii maaragtay tii nabigeena sala allahu calayhi wasalam saxaabada ay soo hijroodeen yaa maka ka hijroodeen ilaa iyo madiina ay usoo hijroodeen, waxaa loo hijrooday liajli diin baa loo hijrooday soo maha. taa hadday dhammaatay laakiin hijrad mid ka weyn baa jirto oo waxa weeyaan in maaragtay iyo jihaad nafteeda in lala jihaaday u baahanta. idan takaaliifta oo shaaqada ah oo ka mid tahay jihaadka naftaada lafteeda ayaa horta cadow kugu ah, hawada cadow bay kugu tahay, adduunya cadow bay kugu tahay, shaydaan cadow buu kugu yahay. 4 cadow baad u dhaxaysaa insaankan basiidka oo maaragtay yaa daciifka ah oo 4taas cadow ku hegaagaran bal ka waranba. idan waxay u baahan yihiin juhdi in maaragtay in la geliyo. kakadaalika salaadii waa aragtay salaadii fajirkii looma xaadiro sida loo soo xaadirahayo duhurkii iyo casirkii iyo maqribkii iyo cishihii looma xaadiro yaa. inta badan dadkii way ku adagta, iyada lafteeda waa shaaq. sidoo kale zakadii xoolihii inaad bixiso oo maaragtay wixii ilaahay ku waajib yeelay in aad ka bixiso lafteeda, nafta shaxiixnimadeedii yaa calaykum assalaam ayaa diidayso. idan ilaahay muxuu yihi waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum almuflixuun. qofka shaxiixnimada naftiisa laga ilaaliyo kaabaa liimaaday. oo meeshaan bukhulka 4 ayuu u qeybsamaa, bakhiiltinimada 4 darajo bay leedahay yaa. waxa weeye bakhiil waa nin naftiisii wax la jecel laakiin cid kale aan wax la doonayn, inuu asaga wax helo waa jecel yahay laakiin cid kale lama jecla. idan marka ilaahay muxuu ka yidhi waman yabkhal fa inamaa yabkhalu
calaa nafsi. qofkii wax cishta reebta yaa wuxuu ka celiyey naftiisunbuu ka celiyey. ayuha alikhwa wallahi laa ilaaha hayru. maanta inta lagu leeyahay walaalow wax isii ama ii kaalmeey ama hadduu ilahay wax lagu weydiinayo, wallahi nicmo wey, waa axsaan adiga laguu samaynayo inaad kaga faa'iidaysatid fursadda. inta lagu leeyahay wax keen, maalin baa imaanayso waxa adiga aada haysato aad yaa ku agyaal cidaad siisa aad garan weyd. qofkaad tiraa wax ma u baahanta ku may alxamdulilah waa haystaa. maalinta hadday kugu timaado yaa halkeebaad wax ka bilaabin. xoolahana waxay qiimi ku leeyihiin in la bixiyo. markaad wax bixisidna ilaahay bedelkiisu ku siinahayaa. ilaahay subxaana watacaala waaga markuu beriyo ay qoraxda soo baxdo, 2 malag ayaa la soo baxaan, ayaa qoraxda la soo baxda. labadaba waa ducaynahaya. waa malaa'ig oo hadduu ilaahay ku roon yahay yaa oo ceyb iyo dembiba ilaahay ka ilaaliyey. ducadooda maxaad mooday? waa aqbal. mid muxuu ku ducaynahaya? ilaahow kii wax bixiyo yaa bedel sii. kii wax bixiyo xoolihiisa wax ka bixiyo bedel sii. midka kalena wuxuu ku habaartamay ku ducaynahayaa ilaahow kii wixiisa ceshtana yaa baaba. maxaa wixii xoogee suu u qaadayo yaa meeshii ku baaba-ayaan. kanna wixii markuu bixiyey ayuu hadduu ilaahay kuu roon yahay ilaahay bedel yaa khayr qaba yaa ugu bedelahaya. nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiis umana caaisha warinaysa ayaa maalin waxaa dhacday in waxar yar ay gowracday umana caaisha radia allahu canha. waxartaa ay gowracday way kala qayqaybisay. waxay reebtay xibin uu nebiga uu jeclaa. xibin uu nebiga uu jeclaabay ka reebtay. xibintaas oo maaragtay intii kale way sadaqaysay. markaasuu nebiga markuu yimid calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu yidhi, waxartaad gowracday maxaa ka baaqi ah? waxartii aada gowracday maxaa ka baaqi ah? waxay tiri xibintaad jeclayd baa ka baaqi ah, intii kale yaa way sadaqaysay. markaasuu wuxuu yidhi, xibintaa marka laga reebo inta aada sadaqaysay baa baaqi ah. xibintaa marka laga reebo inta aada sadaqaysay oo bixisay baa baaqi inoo ah. ama middan waa cunaynaa yaa musqul baynu geynaynaa, tan kuma jirto. wamaa cinda allaahi albaaq. wixii ilaahay agtiisa yaalla ayaa baaqi ah. wixii alla agtiisa yaalla ayaa baaqi ah. idan naftu shaxiixnimay leedahay. waxaan niri 4 qaybood weeye. bukligii baan tilmaanay. waxaa xiga shuxa, shaxiixnimo. waxa weeye inay wax bixiso iska daaye. kii wax bixin lahaa bay gardaduub u qaban. ay odhanaysaa war maxaad wax u bixin? xoolahanayta maaragtay yaa adiga iyo caruurtaadii yaa mustaqbalkood waxba yaa waa qofkii kale wax bixin lahaa. war ilmahaagii umadaanayti maaragtay baryada ka dhammaan mayso, wax weydiska ka dhammaan iska daaya dan uga bax. qofkii wax bixin lahay bay ka reebi. ilaahay muxuu yihi, waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun. qofka laga reebo shaxiixnimada naftiisa laga badbaadiyey kaabaa liibaana. iyada inay wax bixiso iska daaya, kii wax bixin lahay bay hor istaagay. waa 2. waxaa xiga la-iim. la-iimku naftiisana uma roona, tukalana uma roona. la-iim naftiisa uma roona, tukalana uma roona. mithaal, dadka masalan dalka haddaanu xusuusano yaa dad masaakiin baa magaalada iska soo geli jiray. dukaamada iyo guryaha bay wax iska weydiin jireen. maantoo dhan waaga markuu baryo ilaa gabalka ka dhaco yaa marba albaabbuu istaagahayaa, waxbaa laga siinaya. waxa uu aruurinahayo laftiisa xitaa koob shaahi uga shubi maayo. gabalka markuu dhaco intuu calal uu ku duuduubo ayuu god faagahayaa, uu ku duugahayaa. asagoo wixii la siiyey naftiisana wax ka siin, cid kalena uu wax siinin yaa ayuu aasahayaa. idan marka la-iim naftiisana uma roona, keyrkiisana uma roona.
waa bukhliga darajada saddexaad. waxaa xiga oo kan afraad ah qatuur. qatuurka saddexdaanuu dhaamaa. wax waa bixin, laakiin wuxuu bixinahayo yaa wax dad yaa ku filan ma aha. haddii maanta la yidhaahdo marti baa kuu timid oo la yidhaahdo maaragtay martidan yaa qadadooda iyo haddii ilaah kuu roon yahay iyo cunistooda iyo cabidooda yacni 50 koo yaa oo ama bown ha ahaado ama yaa waxay ahaataba markaa dalka la jooga ayaa ku filan. wuxuu leeyahay ma intaas ahaa reerkii wuxuu leeyahay 50 meeshii laga rabay bal 10 kaanayti yaa haloo maanta haloo biyeeyo. war 50 baa ku filan 10 yay waxa deeqi waxbuu bixiyey, laakiin wixii uu bixiyey yaa cidna kuma filna. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo ammaanahaya cibaaduraxmaan ayaa sifadooda inoo tilmaamaya, ayaa ilaahay wuxuuna leeyahay waidaa anfaquu lam yasrifuu. hadday wax bixinayaan ma xadgudbaan yaa walam yaqturuu mana ciriiriyaan yaa oo wakaana bayna dalika qawaama. way dhexdhexaysanahayaan intaa yaa yacni insiraaf fara badan yaa maanta dad baa hadduu ilaah ku marti baa timid waxaway raashin ku filan oo iyo cabitaan ku filan ma wax intii ka zaa'id oo ka badan hadhow qashinka lagu shubo waa insiraaf weeye. laakiin qofka wuxuu saxankiisaas yaa hataa uu maaragtay farihiisaba halleefee yaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ayaa la doonayaa in la dhedhexaysto. alqatuurna waa kaa weeye. afartaas darajo ee bukhliga intuba khayr ma laha, waa ahlunaar waciyaadu billah. idan ilaahay wuxuu takaaliifta zakada iyo salaada inay adag yihiin. ama saa'ir alcibaadaat waxa soo haro cibaadada sahla waa fududa. cibaadada waxa ugu adag waa waxa weeye jihaadka, waxaa xiga hijrada. ya maanta hadda hadii la yidhaahdo war meeshaan aan isaga tagno oon ka sheeganayno allena akhlaaqdii caruurtii iyo haweenkii maaragtay yaa subxaana allah waa la garan la-yahay oo laga cabaadahay ya bal ha laga hijrooda ha la yidhaahdo waa adagta wallaahi wax dhaqaaqahay. dad baa isku dayay ya ilaa man raxima rabbii, daduu ilaahay u naxariistay oo casiimo la yimaaday adkaysi ya oo haddii ilaahay kuu roon yahay meelahay aadeen ku adkaysteen dhib iyo dheef waxay ku qawaanba yaa mooye inta badan in lasoo cararo oo maanta lagu soo noqtay noqdo. marka hijradii lafteeda waa dhib wey. salaadii ka kadaalika, zakadiina maalkii la bixinayo waa sidaa ay tahay. haddana ilaahay muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yacni bal fiiri 100% baa lagu yidhi 2.5 ka bixi. 2.5 haddaad 1,000 haysato yaa waxaa lagu yidhi 25 ka bixi. meeqaa kuu soo hartay bal fiiri. xitaa taa lafteed nafta bakiilnimadeeda yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay naftan sheekhnimo ku tusayso. ilaahay muxuu yidhi ina allaha ishtaraa min almu'miniina ya anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna. ya maalka yaa iska leh, ilaaha iska leh. jannada yaa iska leh, ilaaha iska leh. wuxuu ilaahay leeyahay ayuu nooga gadanahayaa ya naftana asagaa iska leh, xoolahana asaa iska leh. bal bukhli meeluu gaaray, nafta bakiilnimadeeda meelay gaartay ya waa maaragtay halkaa wey. nasal allah alcafwa alcaafiya. idan saa'ir alcibaadaat waxa weeye way iska fududdahay oo mashaqo ma laha, laakiin intaa ayaa runtii oo mashaqo iskale. ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu ugu talagalay. hadda masalan jihaadkii waxaynu maaragtay casharadeenna ka mid ahaa ya qaswat uxud dhacdada yacni siday u kala horeysay. horta waxaa marka ugu horeeyaba ya iimaanka ayaa maaragtay lagu kala bixinaya. meeshii munaafiqiin baa jiro, uurku gaalaa jirto ya oo maaragtay qarsanahaya
oo salaadii bay tukanahayaan, safkii horey ku jiraan, zakadii waa bixinahayaan, ma garatay. laakiin inay run ka tahay beenka ilaan ilaahay yacni cilmilqeybka waxaan qarsoon ilaahay na tusi maayo. waxa qarsoon rabbi ina tusi maayo ilaa inuu ambiyadiisa u waxyoodo maahine. ilaahay inuu ambiyadiisa u waxyoodo maahine dadkeenna caadiga ya ma garan karno. maanta inteena meesha fadhina qof walba uurkiisa waxa ku jira ilaah unbaa garan kara, cid kale garan karta. laakiin ilaahay ya waana kala saarahaya. waxaan aan sheeganayno ayaa nalagu kala bixinaya. fakti ugu horeysay 1,000 ciidan baa nabiga soo raacday oo la socotay. markii goobtii dagaalka la yimid 300 baa ka laabatay isla markiiba. waa kuwii urku munaafiqiinta ahaa, urku gaalada. 300 madiina ay dhaheen low naclam alqitaala, haddaan maaragtay kuwa yaa dagaal yaqaan ahaan lahayn, aan ogaan lahayn, ya waa maaragtay waaba idin agris taagi lahayn. idan xaggaasay u laabteen, xaggaa ayay u laabteen, way noqdeen iimaankoodii ya meeshaasaa maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku muujiyey. ya waa lagu muujiyey. haddana maxaa xigay? 700 baa meeshii ku hartay. 300 baxay. 700 oo meesha ku hartay ayuu nabiga sala allahu calayhi wasalam qeyb ka mid ah ayaa wuxuu yidhi buurtaas kora, xaggaas ha ka soo degina. ya hataa haddii annaga ay shimbiraha haadda hataa hilbaheena dafaysa yaan laga soo degin meeshiina ahaada. waa kuwii fallaarta ya fallaarleydii ya jabal arumaa, waa qaswatul uxud weeye. idan meeshaa ha ka soo degina baa la yidhi. dagaalkii faktii hore muslimiintii baa gacan adkaatay. hadday gacan adkaatay oo gaaladii 22 wax lamida laga dilay ee carareen, xogaagii maaragtay meesha uga carareen ay wateen ayaa maaragtay in la gurbiyo la gaaray. qoladii meesha fuushay baa qaar waxay yidhaahdeen war haddee wixii waa dhammaadeene gaalana carartay, aynu maaragtay qaniimada aynu ka faa'iidaysano. qaar baa waxay yidhaahdeen war aanu warka nabiga sala allahu calayhi wasalam aynu yaan la jibinayna meeshana. maya haddee nabiga awalba wuxuu saa u lahaa. haddee dagaalkii intuu socday adiga meeshii baa laisku dhacay. qaar baa meesha ka soo habtay, qaar yar baa ku haray. idan khaalid ibnu waliid oo 200 oo fardafuula wato xaggii meeshii qoladan markay in yar ay joogaan ayaa meeshii ugu yimid. intiina cagta la mariyey lagu dilay, halkii dhabarjab ay ku dhacday. oo 70 saxaabi oo rag qiimi badan ahaa ayaa lagu dilay meeshii goobtii iyada ahayd. maxay ku dhacday? waxay ku dhacday amarkii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo la diiday oo yidhi ha soo degina. soo degistii keliya amarkaas oo nabigii sala allahu calayhi wasalam la caasiyey. waxaa dhacday in jab uu u yimaado muminiintii, inuu jab u yimaado mu'miniintii oo halkaasna maaragtay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin nabiga sala allahu calay wasalam laftiisii dhaawac lagu gaarsiiyo oo maaragtay rubaaciyadiisii la jibiyo oo dhiig madaxii koofibireeddiisii lagu dhaawaco, wejigiisii maaragtay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin dhiig qariyo ayay kaliftay. idan maxaa keenay? waxaa keenay ayuha alikhwa amarkaas yar ee la jibiyey ayaa dhibkaas keenay. maanta aanu nolosheenna ku dabaqno. waxaanu leenahay muslimiin haddaan nahay dhibkana haysto waa maxay? balaayadan iyo dulligan ma garatay intuu nooga yimid. haddaynu maalin walba aynu caasinayno ilaahay iyo rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam haddee inay dhibaato inay noo imaanayso miyaa la diidahaya? dabcan waa imaanaysa. idan marka amarkaas yar ee la jebiyey. saxaabiga cabdullaahi ibni mascuud radi allahu canhu wuxuu yidhi wallaahi yasiri hadduu ilaahay subxaanahu watacaala uu aayadda soo dejin lahayn oo ahayd minkum man yuriidu addunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira, hadduusan ilaahay aayaddaa soo dejin lahayn wallaahi uma wallaahi ma la ogaadeen in ay naga mid yihiin dad un adduunyo raba. maxaa dhe kuwii soo degay maxay u soo degeen? xoogaaga meesha laga aruursanaya in ay
yaa la noqdaan inay qaataan dhibkaasaa ka yimid idan saasaynu aan ku ogaanay inay naga mid yihiin dad adduunyo doon iyo dad aakhira doona inay nagu jiraan inay dad aakhira raadis ah iyo dad adduunya idan ayuha alikhwa ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay sha'nigiisii ma ahaanin inuuna sidaa nagu daayo khalaas mu'miniinan nahay khalaas inuu nagu daayo xataa yamiiza alkhabiitha min altayib ilaahay inuu kala saaro yaa midka xun nafsadiisu xun tahay maxay kunta khabsigu waa maxay bishirki walmacaasi yaa in ilaahay wax lala wadaajiyo iyo in ilaahay la caasiyo weye khubsiga weeye xataa yamiiza ilaahay inuu kala sooco kan xun min atayibi kan wanaagsan ayibku waa maxay ninka oo tahira naftiisa muxuu ku tahirahayaa maxaa lagu tahiri ma shaambow iyo biyo iyo saabuun iyo cadar miyaa lagu tahirahaya maadadaas ilan qofka markuu wasaqoobo inuu hadduu ilaahay kuu ron yahay uu soo qabaysto isa soo carfiyo isa soo waxeeyo ayaanu ku naqansaba maya waxa weeye biliimaani waalcamal asaalix nafta taas ayaa lagu tahirhayaa ayay ayib ay ku udgoonaysaa oo maaragtay ku carfi ilaahay inuu ka siiy wamaa kaana ilaahay ma ahaanin wamaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin liyudlicakum mid idin aragsiiya cala alghaybi waxa maqan maanta waxa maqan wax cid ogaan karta ma leh haybku waxa naga maqan wey qofkii maanta dhihi lahaa siday maaragtay reer bani israa'iil ay u yiraahdeen nabi muuse calayhi salaam ilaahayna tus aanu aragno wixii ka raacay nabi muuse waad wada ogtihiin lama arki hayb wey haybkaas maxaa ka mid waxaa ka mid nafsadeenna ruuxdeenna inagu jirta waxay ka mid tahay min alghayb waxa maqan bay ka mid tahay haybiyaadkay ka mid tahay waayo nabigana waa tii ay quraysh intay wafdi dirsadeen oo yidhaahdeen nin baa jiro annaga naga mid aho nebinimo iyo rasuulnimo sheeganahaye maxaynu ku garanaa 3 su-aal weydiiya baa layidhi 3 su-aal hadduu ka wada jawaabo waa nin iska hadlahaye ra'yigiina ka qaata hadduu qaar ka jawaabo uu qaar ka jawaabi kari waaye waa wuxuu sheeganaya weeye waa nebi weeye maaragtay idinkay idin jirtaa haddaad raacaysaan iyo sidii kolley haddii uu waxba sheegi waayo waxba iskuma hayaba wuxuu isku haya ma laha ma garan idan marka 3dii maxay ahayd dhalinyaro diintooda la carartay dhalinyaro diinteeda la carartay oo maamulkii iyo boqortooyadii joogtay kala carartay diintooday la firdhadeen iyo boqor yacni meesha qoraxda ka soo baxday meesha u dhacda ee xukunkiisa uu gaarsiisan yahay oo maaragtay bal weydiiya midda 3aadna ruuxda weydiiya 3daas su-aal marka nabiga sala allahu calayh wasalam isagoon istinoonin ayuha alikhwa ayuu wuxuu yidhi berri baan jawaabta idinla imaanaya markaasaa waxaa ka soo daahay waxyigii oo jibriil uma imaanin markaasay buun dhowdeen gaaladii yireen awal waxba iskuma haynin ninkii dhahay berri baan keenay haddana 15 cashar la marahaya waxba iskuma haynin istinaa waxa weeye in shaa allah taa ayuu nabiga sala allahu calayh wasalam ilaa bilxikma oo ilaahay subxana wa taala waxba annagaa wax laynagu barya walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika qadan ila an yashaa allah idan waxaa marka makaan shaahidkaygu yahay yas'aluunaka can iruux ruuxday ku weydiinayaan ruuxdan annagaa dilnay intii kale waa ogolnahay laakiin ciise ma ogolinin bay yidhaahdeen nasaara inta kale waa ogolnahay laakiin maxamed ma ogolin laakiin ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaan rusushoo dhan waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi وباليوم الآخر عفوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا يعني أمد النبي محمد رسول شرطان ويرميان إذن رسول شرطان أي رميان
wain tu'minuu watattaquu haddaad ahaataan kuwa alla rumeeyo ilaahayna ka baqdaan falakum ajrun cadiim waxaad leedahay ajri aada u weynin badan ajarkaasna waxa weeye jannada waa silcada ilaahay midda ugu qaalisan weeye idan halkan waa taxqiiq ya wilaaya welinimada ilaahay ya weligiisi lagu xaqiijinayo ilahay yiri ana ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wakanuu yattaquun ya labadaas shardi idan marka weligii maxaa lala aaday qubuuraha ya kuwa maaragtay la ziyaarto sanadkii ciiddiisa la barakaysto hadduu ilaah kuu ron yahay kaas weli noolba inuu jiroba ya lamaba moodaba weliga nool idan marka tan yaa sameeyey waxaa sameeyey acdaau lislaam acdaau ya muslimiin ayaa waxay yidhahdeen kan weliga nool ya oo in aanba laga baqinba inaan laga baqin oo naftiisii iyo maalkiisii iyo sharaftiisii lagu xadgudbo darteed ayaa arrinkaas loo sameeyey oo maaragtay kan qabriga ku jiro ya sheekh caalima raxmatullah caleyhi waa dhintay ayaa wuxuu yidhi waxaa dhacday buu yidhi dalka nin ya inuu masalan faaxisho ku dhaco zino ku dhaco ya uu aqalka ka soo bixi kari waayo hadduu meesha qabri oo weli min awliyaa yaa qabrigiisa hadduu meesha ku yaallo baqid uu ka baqayo isagoo qasli qaba inuu qabrigaas ag maro ka baqi maayo weliga nool ya xurmadiisii ya maalkiisii iyo sharaftiisii inuu ku xadgudbo ka baqi maayo wuxuu ka baqahayaa weligan meesha ku duugan asoo janaabo qaba inuu ag maro waxa saa loo yirin oo loo sameeyen isticaar u sameeyen waxa weeye in awliyada ilaahay ya lagu xadgudbo oo la xiro la garaaco la dilo maalkooda la dhaco ya dumarkoodana hadduu ilaahay ku ronya wixii la raban lagu sameeyo laakiin maxaa la ilaaha haddii dadka lagu barbaarin lahaa iska ilaaliya awliyada ilaahay ilaahay xadiisulqudsi buu ku yidhi yaa man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarb qofkii weligayga ku xadgudba ama dhiba dagaal baa naga dhexeeya haddii lagu tarbiyeyn lahaa nin weli ya oo lagu xadgudbi lahaa oo maaragtay ma jirteen idan hadafkaas ayaa loogu talagalay layidhi qabuuraha kuwa ku duugan oo ayaga laftooda u baahan in loo duceeyo ayaga laftooda u baahan in maaragtay wax la taro oo duco yaa iyo wax lagu taro u baahan ayaa laleeyahay laga boqo kan nool inuu weli yahay idan wilaayada ilaahay waa haadihi aaya ayuu ilaahay noogu xaqiiqinayaa wain tu'minuu watattaquu haddaad ilaahay rumaysaan oo alla ka baqdaan walakum ajrun cadiim idan marka waa taxqiiq ilwalaayo weye wilaayadii yaa oo la sugahayo weye idan marka shardiga waa maxay waxa weeye yaa alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwa la yidhi aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey wa kaanuu yattaquun ilaahayna ka baqay kuwaas weeye awliyada ilaahay aanu maanta dadka mu'miniinta ah iimaanka loo ilaahay ka baqahaya inaan maanta hadduu ilaahay ku ron yahay la iska ilaaliyo laga baqo wallahi haddii maanta laga nin ku xadgudbi lahaa ma aysan jiro marka intaasaan kusoo gabagabaynaya qowlkayga sheekha igaga dambeeyo oo insha allahu tacaala barnaamijka intiisa kalena hadduu ilaahay ku ron yahay inoo dhammaystirahaya marka jazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم جزاك الله خير الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام.